بسم الله الرحمن الرحيم. وادين سلام كلين بعد ورباهنتا يدك الصوماليات نجد دعوانا جودها الدلكة يدافع الدنيا دمان تيمبا وحن هودا دين صومرنا يا سلام ديران وحن دينكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورصحافات كان عن هل كان كجيدين يا مانتا وحكوصو بيجمي سدح سنة يسدح بلود كدب دور الشذي مدحونا حسن شيخ وحنا عاوة أما قلبتا جودمر إذن كوكو سمين دونا حالة الدلكة إسكويس كمان تا أنتاجنا هاي كارهان جد سعودك دولة ديسكا إيو دولة نمد الصومالية مدحونا حسن الشيخ حلقوا دورتي لقونا داري دستور هشيس لقوي هاي وكوكو طما هنام فدرالة نظام برلماني إيو دورش اللي يسلو قولي هاي وأفرتي سنبا تلك مركز عضا وحا أيان دراعة إني صوماليا ما أنت كجرتو فراق دستوري ما دام ومدحوينه اسكو دايي إنو اتبيا كميد هاد دستور كي heshiiska lagu ahaa ee 2012 wuu bedelo si baalmarsan hanaanka wax ka bedelka dastuurka nasiib daro dastuurkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed isku hayay maanta waa kala dhantaalan yahay dalkana waxa nasiib daro dastuur oo ah rabitaanka madaxweyne xasan sheekh صدني شن سنة كهر واحد دولة نمدي صومالية جلافتي وجامية الصوماليات أول علي دستور كي هشيس كلاوها حكم كنا إسكود جي سديد بلاد يلحي اللباتن معلومات أيا جلبت كرمن مدحلات كمدحوينا حسن شيخ وحنا يدو أي مدحوينا وهرتي مدة سكوبان أولي هشيس لقى هين doorashada heer federaal ee soo socota taas oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxa sidoo kale magaalada Muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn kuna qotonta qasab qori iyo qafaal waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka waxaa go'ay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo ay colaadisay dawladda madaxweyne xasan sheekh taas oo nasiib daro horseeday kala irdhow siyaasadeed khilaaf hor leh halisna ku ah dalka iyo geedi socodka dawladnimada gaar ahaan isku haynta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa qaybo kamid ah gobolada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka wado dawladda madaxweyne xasan sheekh waxaana ayaan darro ah in askar Soomaaliyeed oo loo carbiyay ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka khawaarijta ay iyagu dhexdooda maanta dagaalamayaan dhufiisna ay isugu jiraan gaar ahaan gobolka Gadow waxa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka waxa haawanaya suuqyada ganacsiga waxaana dalka dibadiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada Soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qalafsan ee dawladda hadda jirta dalka ka abuurtay waxa xusid mudan in nidaamka dawladda hadda jira oo uu hormuud ka yahay madaxweyne xasan sheekh in nidaamka ay dalka ku hogaaminayaan awgeed inay dadkii Soomaaliyeed ka sii hayaamayaan dalka ay u guurayaan dalal shisheeye halka ay dhalinyaradii Soomaaliyeed badaha ku la'anayaan iyagoo raadinaya nolol iyo rajo ka duwan
تنعاو كجرت مقالة مقدشو مدحوينا حسن شيخ وحاحلك لقو آمني يدو دقمو واح يحافظ كستا وكتر سن عاصمة دلكا هي دولدو كل هذا هاي دولدن جودة وحمصيبة قرنا إن مدحوينها دلكو ومانتا في السوق مدوءة كو إيبين أيو دولكي دنت جود قري عارد ديسنا كو بركعنا يا شعب كي دن يرتاها يكون ولا دولكاس وحنا حسد مضن إن دولكي دنت جود لقصي بلارين أيو دول إليهين دت شعبه أود الدولة نمدنا لقو بابو دول أي ددوينها الصوماليات وهيستان لهانشو شرعية دينا عبيش عالمك دولة الصوماليات وحي كتير سنتهاي كب يكالمة عالمية ميزانية الدولة وحال لحدا يتضبط بقول كيف بحياة دق بحياة شعالمك وحنا كنا لنا هاي دني أنقو أنا دلو قارين سيدي لو قاري جري سبدل واوين أو مضان إن سحل كسنمله لولا فالقلنا وحي كسعدان عالمك يقبل كأن كنا لنا هاي وحسيد أصدرات ديد إلا حد اللبادي قوبة يا قوسنا لقى تاقين هاي لقاليه لقو بحن لها عيدا مدى نبض إلالنتا اللو قنديي صوماليا maadaama uu musuqmaasuq iyo habdhaqanka dawladda hadda jirtay uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aamin baxayaan dawladnimada Soomaaliya waxaa sidoo kale xusid mudan in mashaariicdii horumarineed ee hay'adaha caalamiga ah u qoondeeyeen Soomaaliya ay badankood fulintoodii fashilmeen maadaama aanay dawladdu lahayn karti iyo hufnaan ay ku filiso taasoo horseeday in lacag nus bilyan dollar ah ku dhow ay dib ugu noqoto deeq-bixiyaasha caalamiga ah walaalayaal dalkeenna iyo dadkeenna la jecel badan ayaa naga haysa waana damqanaysaa lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno hooyo Soomaaliyeed oo dan yar ah oo madaxweyne xasan sheekh ka barakicinayo dhulkii ay ku nooleen waana damqanaysaa lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno dhulkii danta guud oo lagu xaraashayo suuqa madow lagana saarayo diiwaanka hantida qaranka sidoo kalena la boobayo dhul ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo loo xoog sheeganayo loona adeegsanayo awood dawladeed waana damqanaysaa lamana aqbali karo in argagixisadu la wareegto dhul aan ku weynay haleeyay qaran halka ay dawladuna ku mashquulsan tahay in dhulkii danta guud ay kala wareegto shacab tabaalaysan oo ay shacabkaas ugu badan yihiin qoysaska ciidamada dalka difaacaya habeen iyo maalin waa taageersannahay shaqada ay wadaan ciidamadu waa ku kalsoonnahay wanaagooda iyo shaqada ay hayaan waana ku garag taagannahay ummadda Soomaaliyeedna haddii Ilaahay yiraahdo way ka guuleysan doontaa cadawga khawaarijta waana damqanaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii dawladda ee loo carbiyey ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo la dagaalanka khawaarijta oo loo adeegsanayo barakacinta danyarta aynoo furumo uga jiraan xaafadaha iyo suuqyada caasimadda dalka waana damqanaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii qaranka oo ku dagaalamaysa iskuna leynaysa deegaano nabad ah si ay madaxda dawladdu ugu gaarto dana gaar ah iyo damac siyaasadeed waana damqanaysaa lamana aqbali karo inaan aragno ganacsatadii dalka oo hantidooda kala hayaamaysa Soomaaliya qoysas badanna ay ka haajirayaan dalka dhalinyaradii Soomaaliyeedna
iyagoo quus ah ay naftooda ku biimeynayaan badaha. waana damqinaysaa lamana aqbali karo inaan aragno askartii dowladda oo suuqyada xaafadaha iyo wadooyinka ka qafaalaysa shacabka si ay qasab iyo qoray caaradii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ugu diiwaan geliyaan. waana damqinaysaa lamana aqbali karo in la kala dhantaalo midnimada dalka lana abuuro tafaraaruq iyo khilaaf xor leh oo lagu kala geynayo ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirkeeda. waana damqinaysaa lamana aqbali karo in dhaqankii dowladnimada Soomaaliyeed loo rogo yaa xoog leh dowladana ku xiran dowladnimaduna ay si xuub siibanayso musuqmaasuq xarkaha goostay. ugu dambeyntii waxaan leeyahay madaxweynaha wixii aan annaga iyo adiga inagoo halkan aan taaganahay hadda anigu taaganahay wadajir wada taagan aan dalkan horay ugu qaadi weynay kana diidnay madaxweynihii adiga ka horeeyay adigana laga yeeli maayo ee u tur dalka dhulka dhig talada si dalka Soomaaliyeed iyo dadkaba loo samata bixiyo. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.